inay yacni meesha laga soo galayo iyo meesha loo socdo ma yaqaanaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay yaqaanaan ummadda inay yacni kii ka soo horjeeda la dagaalamaano waxay yaqaanaan inay yacni micno waxaana micno lahaynin marka shala fursadii way dhaafta hadda waxay taagantaa Burco iyo Hargeyso yacni ma matali doona Muuse Biixi وما سعر يفسر على ورابع دينعا كفديسة دونانو يعني يراهان حسبيدي مثلا يعني رير تولكاس مركا موسى ساسي كتاغن تاي maanta ina dhig joojin u noqotay dadka laascaanood dayacdo aniga baan ma sheegayo qaabkay wax u socdaan shalay xasan shiiqo qabyaalada ku soo gashay waa la yaqeenay yaa mudulooda yaa hawiye ayaa ku soo gashay haddana sidii baa ku wadaa oo dadka siday ku arkaan bulshada siday ku arkaan waa sida shalay ku soo gashay hadday Soomaaliya inay kala tagto يعني شغاله u tahay noo sheeg anaka umada Soomaaliyeed shalay laas aanos 15 sano ayaa culeys haastay maanta way iska dulqaaday way halgameen way dagaalameen shalay way sabreen geed walbay u fuuleen in wax lees la wada lahaado ina yani wax walba lees la wada lahaado ay geed walba u fuuleen way waayeen markay waayeen ilaahay kuma sama darnaadee maanta waatanay dhibka iska dulqaadeen ani waxaan dhihi lahaa xasanow horta daarood wuu shiri doonaa arinta irirkaad wadiino yani iyo arinta qabiilka wadiino maanta meel igiga xir oo Puntland way ku diidan doo halkaas taagan tahay nimankii laascaanoodka dagaalamayane inta isgaratay aqla yeelatay umada Soomaaliyeed isku soo celiso la wada hadashay dadka Soomaaliyeed ficil tustid ilaan xaq bay u leeyihiin xaq umada Soomaaliyeed umad ku rabto ee ku dhahayso yani aniga dawladda federaalkan hoos taga inaku yani u soo magacaawdo godoomiye goboleed ay ahayd inta laga gaaray intay maamul ka dhistaan ina godoomiye goboleed u soo magacaawday ahayd waxay ahayd inaad garab istaagto shalay gaday ahayd waxa ciidamada ka soo qaadaysay hadaa reer gaar yani waxa adigoo xataa ay saxayiin ayaa laga gaabsadaa Soomaaliya qabaayil ay wada degan tahay shalay foolxumada ku soo gashay waa uga taxsan hadaa Soomaali inaad kala geysan rabtid ee dadka hoostaada ka shaqeeyo ee qabyaalada iyo waxa ku dhaqmaya tilaabo ka qaadi kara xasan madaxweyne madaxweyne Soomaaliyeed oo isku imaahayna ma tihid oo Soomaali inuu isku keenay iyo wada jirkeeda inuu ka shaqeeyo ma tihid hadii daarad uu tasha doona garowana shirka dhici doona ha cataabin hadaad rabtid dawlad hawiye inay dhalato rabtid dawlad raxweyn inay dhalato rabtid dawlad daarood inay dhalato adiga ka shaqeeyaysa xasan adiga ayaa ka shaqeeyaysa umada Soomaaliyeed daarood waxna kuma dhimin waxna kaama halaynin waxay taageen gado filla Soomaaliya hoos tagnaa oo laascaanood waxay taagan tahay filla Soomaaliya hoos tagnaa kama faa'iideysay fursadaad oo gacanta ku haysid waxaad u orday nin umada baabi'iyay ee umada dhiigeeda xalaashaday qaxiyay qaxooti ka dhigay masaajidadeeda burburiyay istaaladeeda burburiyay ayaa ergay u magacaabay ergagii waxa kaaga sii daran cadowgii Soomaaliyeed maska Soomaaliya hoos ka cunaya ee Ismaaciil Cumar Geelaa shir lagu qabaha leedahay adeer ani waxaan dhilaa reer Muqdisho ilma adeerayaal reer Muqdisho ana reer Muqdisho la hadla dhalinyarada ka soo jeeda beesha hawiyo 30 sano waxaad u dhamaahayso 30 sano wuxuu qarax kugu dhacayay Hargeysa lagaaga soo hilimaynin oo qaraxa waxa ka dhaco bisada Hargeysa ku nool ninka Muqdisho jooga way dhaan tahay waxay ku hadlayeen nimanka madaxda u shacabka ma hastaani nimanka madaxda u shacabkeena la dhaqmada lana la damqadaanena la hadlaan waa laga yaabay nimanka maanta ergiga loo magacaabayo ee waa la wada hadlaa la leeyahay aniga waa nimankii idahayay
bisada hargeysa ku nool ayaa ka sharaf badan ninka muqdisho ku nool waxa waayay maatadeyda iyo caruurteyda iyo haweenkayga ka soo qaxay Yemen waa nimankii dhahayay ka soo dagi maayano waa wala weyn oo waa qadaad weyn dhahayay ee laga dajiyo Boosaaso daaroodna wax iima dhimin ninka ila damqaday ninka ila dagaalamay ninka yacni wax walbo dib iyo dheef waxaan qabo ninka ila qaybsada waay haddaan hawiyo waa nina dawlad isla leenahay waa nin wax ila wada ogol waa nin ina xukumo iyo ogol nin ina xukumana ogolahay waay ani waxaan dhihi lahay qabyaalada qaawan iyo dhibka la wado Soomaali kala tageed waay filla Soomaaliyana ka shaqeeyso xasan haddaad samay weysid dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhibka ogaanto ku shaqeyso ee magaalada Muqdisho korkeeda lagu cuno bal caalam waxay keento wallahi oo billahi oo tallahi kacdoonay keeni doontaa tilaas aanod ka dhacdaan Muqdisho ka dhici doonto boqolaal baha ku dhimato Soomaali xurnimadeeda gumaysiga iyo maskaxda aad ka gumaysateen way ka bixi doontaa dhalinyarada Muqdisho kuma jiri doonto kala geeska la wada iyo qabyaalada iyo qurinka wariyaha Abshir Buqaariya soo hadlay wuxuu leeyahay Soomaaliland shaqaaqada ka jirto waa inaan la yani la xaliya ay Soomaaliland shaqaaqada ka jirto ummad midnimo Soomaaliyeed rabtaa lagu maadaya ummad maamul 30 sano jiray ayaa waxa la leeyahay ilaahay kuma samatarnaade waxa la leeyahay Soomaaliya la leeyahay gooni uga soo lagu dirqiha war ina adar xilka hadaad haysid waxaad u dhaaratay shaqada leeda waa ina ogaato war ra'iisul wasaare ku xigaankii ayaa wuxuu leeyahay Soomaaliland xildhibaanadii ka doodayaan inay gooni u go'aano war hadaad irirtiin hatta irirka ka soo qababa iriraan hanay madad islaameed oo muslim oo nala dhasho Soomaali hadii irirnimada ka soo qatay irir aan ma bihibo irirka la sheegaya hatta gacan ku rimiska la keenayo maba aamisanibo haddaan irirnaanay maxaa daarood ku haysanaa oo dhulkiis ugu haysanaa irirnimadaada ku ekaawo Burca iyo Hargeysa iyo dhulka leeda ku ekaaw inta irirnimada kula ongol ku ekaaw maxaa ku keena dhul daarood war dulmi inta ka weyn ummadda Soomaaliyeed ma la arkay war waxaan idin leeyahay ilma adeerayaan xasan sheekh shalay wajixumada ku soo gashay wili hadda ku dhaqmaysa waxa kaaga sii daray ciidamadii Soomaaliyeed maanta waxay ahayd hambalyadoodii waqti dambe oo duhur tahay ayaa xal 6 saac ina hambalyaysa laga rabay ina xalfad qaban qaabisa laga rabay ciidamada ku dagaalgalaysa ee furumada hore ku jiraan ee shabaabka kula dagaalamayso waa ina u hambalyaysay maray ka soo daaday baasha qabowday ee xasankii aawa lagu yiray social media laga hadlay ayaa 6 saac soo gashay ayo dawlo ayo sharaf ayo qaymi waqtiyada la xuso ee ciidamada leeyihiin ee dadka halgamaayada leeyihiin ee xurnimada loo qaatay war xasan waa inaad xushmaysaa oo ummadda Soomaaliyeed niyada ku dhisataa ciidanama haysid oo waxa taasid ma laho oo waxaan dawladnimo ka taqaanidna ma laho oo qaabkeedina ma taqaanid war ilma adeerayaal war xasanow anigu waxaan dhilaa dhalinyarada reer Muqdisho caawa fariinaan u faraya war Ramadaan waxaan leeyahay war meeshan dawladnimo kama soo socoto dadnimo kama soo socoto wadajir Soomaaliyeedna kama soo socdo ani waxaan idin dhihi lahay wareeryada la iska dulqaado oo dalkan gumaysi ama maskaxda ka hayo gumaysi ayaa maskaxda ka hayo Puntland nimaka joogo ee arajaan la dhahayo ee Siciid maanta joogo weligood dawlad Soomaaliyeed kama shaqeeyeen dib Soomaaliyeed ay ka shaqeeyeen maanta waxay ka faa'iideysayaan qabyaalada socotay ayay ka faa'iideysayaan waxay ugu faa'iideysayaan war dadkan reer laascarood idinka ka xanaajihayo idinka Soomaalinimada nacsiihayo idinka maanta ficil iyo
فعل قرعان أو قبيالة برايو في الله صوماليا برايسو ورتارود يهويو يدقل يمرفلو وصومالي كوبل ما أنت لله يا أرجع حصة ما ملك أرجع حصة إيه أسألهم هدي اللي قبعي أمتك على صوماليا دوي وكشة صومالي نمضى إيه دقن برعي هركيس إيه واحد دقن ما أنت إنا ديك جوجن ونقط مصبيه أذن أقول حماي أذن أقول حماي أذن أقول حماي صوماليين إذا كلا جيسين واسأركدونا حالات ماشي كدام بيسو إيه عالنك صومالي هرتو قفل تولدي سو كتاجها هو عالنك دوم مايو وعسى دوم دونت هيجلك الدولة ديت إيه لا سوكب كباي إيه ما أنت سيدا أوجات كسعدو إيه شرير كمان beesha daarood qabsad doonto ayaa dhulka gilgili doono dhihi doono ninka marxuunka ee meesha fadhiya xabse cabdi barro oo hadlin oo inuu qorayahay inuu tarag yahay inuu wax meesha loo fadhiisistay iyo reer oo matala la aqoonin ireer oo matala la aqoonin oo reerka oo matalaba u hadli karin ee tarag meesha la soo fadhiistay nama matalay dhihi doonaan odayaasha dhaqanka hadli doonaan nama matalay dhihi doonaan waa arki doontiin haqaylinina shalay markaan isku tali weyne daarood anaka soo doonay anaka diyaarad ku soo doonay cali maxamed geedi way ku jirtaa hadalkiisa Soomaali way kala maarin way soo carta iskugu tagnay waxa dhan oo la soo dhisayane carta ilaa ka soo bilow xaaladda la jooga ayaa wax la soo kabkabaya maantana idinka gacnihiina ku kala firdhihayo gacnihiina ku kala qaadayo dawladda Soomaaliyeedna ku kala geeyayo intaan waxaan dhiilay war abgal ismaan waxaan dhiilay war xasan nama tala dhaha xasan waxaad ku haysatiin malaho xasan waxa ku haysatiin malaho war dagaan walbo qabiil ala waa la ogyahay dagaanka lagu dhamaaday lagu baabay ee ummadda Soomaaliyeed hadii dagaal ka dhacano ku baabado waa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliyeed idinka hareeraheeda degan oo jaashina dhaqanka iyo waxgaradkiina iyo siyaasiyiintiina war xasan meesha nagu wada waa ujeedaa war dawladnimada way naga dhaxaysaa iyo dadnimada Soomaaliyeed dawladda daaradna malo hawiyana malo racweyna malo waa la isla wada leeyahay dawladda war inta ka hadashino dhaha Soomaalinimo xasan hadana ka shaqeeyni nama matashina dhaha xasan dhaha nama matashid hadda Soomaalinimo iyo wada jirkeeda iyo qeerkeeda iyo waxageeda aan ka shaqeeynin war waxaan idin dhihi lahay waxa tiraahin anaka xasanow hadda Soomaalinimo ka shaqeyso dad Soomaaliyeedana war calankan waa naga dhaxay ciidana waa naga dhaxaysa nimankan laascaanoodka halgamayo way dhihi karaan Soomaaliya waa ka go'no dooni mayno way dhihi karaan waxaynu dhahayno calanka inay leeyihiin ogyihiin adiga Muqdisho joogta calanka iyo ku diiday in leedahay marka ninka kala geeyna iska qabatay iyo ku diidan ninka ummadda masiibo kala dhaxdhigaya yayihiin inaan oo kala xiriirto ani waxaan idin dhihi lahay war gumaysi dahsoon oo lagu jiro gumaysi dahsoon ayaa lagu jira marka waxa idin dhihi lahay gumaysi dahsoon ayaa hadafta haysana gumaysi dahsoon ayaa hadafta haysana dalkii diblomaasi $1 ba xukumo dalkii diblomaasi $1 ba xukumo safira la soo dira hadaw ka qaadana safira la soo dira hadaw ka qaadana siyaasiga tuuga qahara difaacayaan qabyaalad ku raacow huwaan qorshaba lahay qabyaalad ku raacow huwaan qorshaba lahay dayarti daalan dooshay dalshahashayaba haydageen dayarti daalan dooshay dalshahashayaba haydageen daryelna kuma haysano huwayga daacadu daryelna kuma haysano huwayga daacadu
dulmiga dhacdayna rabbihiyow dabeebukeen dulmiga dhacdayna rabbihiyow dabeebukeen marka horta waa soo gabagabeeha dalkan diblomaasi inin dollar doonayo isafiro maanta amar in laga qaato ayaa xukumo waxa xukumo maaraad waxa xukumo intii Soomaali wada jirkeeda nacab tusaale idin siiha ergigan ergaya ka horeeyay liiraaho waaro muxuu howlgali waaye maxaa qarash loogu diyaari waaye maxaa yacni maanta wax baahi ugu badan deegaanka maanta Hirshabelle iyo Galmudug deegaanmagooda in la deegaan dib u dajin iyo wax looga sameeyo iyo maamulka hoos loo daadajiyo wax ugu baahi badan ma jirto maxaa uu howlgal waayo Somaliland uu howlgalay oo intaas qarash loogu huray ani waxaan idin dhihi lahay Soomaaliya maanta halkay taaganta kala tageedi waayo haddaad ummadda qabiil tusto qabiilkay ku dhaqmaysaa adiga madaxweynaha hadii qabyaalad laga dareemo adiga waxa laga dareemo ummadda maxaa u diiday inay qabyaalad ku dhaqanto ani waxaan idin dhalaa Soomaali galbeedna waa rabaa inaan ka hadlo war dadka Soomaali galbeedow taasaan ku soo gabagabeeyay dadka Soomaali galbeed waxaan leeyahay horta isku duubnaada Abi Ahmed kalmadaha ka soo fafaniinayo uma bagin ani waxaan dhihi lahaa horta idinku isku duubma oo idinku wada jir sameeya oo ninka idin xukumo ee cagjar la fadhiista oo garabkan ka taaganaha dhaha Abi Ahmed waxaan u sheegayaa inaa u gudbisiin dhihi lahaa horta Soomaali ma yaqaan Abi Ahmed Tigray ma aha Soomaali Tigray oo wixii la rabo laga sameey karo ma aha Soomaali waa la yaqaanaa anako 4 sano jirno ciidankeena dhisnaynin adduunkuna isku tagay arda sababa afkeeda anako adduunka nooyo adduunka soo gaaray kan jooga Gaariso iyo kan jooga Muqdisho iyo kan ilaa Raskabone inta xurta joogto iyo kan Djibouti joogo Soomaali way midoobaysaa dagaalada dhaxdeeda ku jiraan ka faa'iideysaa daleedahay ee ummadda Soomaaliyeed ku baabiyo dhulkeeda ku riix leedahay ee sanka ka gili niman shalay dagaalkii saman ayaan ka dhisaya lacag Soomaaliyeedana ku dhisaho jigjigan ka dhisaya taaha ka yaamin Sid Maxamed Cabdulle waxa laga taagayaa nimankii halgameen hadda u dambeeyeen on alif ayaa horta laga taagayaa maalinkaad Soomaali fara isku taabatan waa Itoobiya burburkeeda iyo ba'eeda waay haddaad xoog isbiday Soomaali baa la yiraa annaka Soomaali baa la yiraa inaad gaarsiisiina raba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa war wada jir baan anfaco waxaan anfaco ummadda Soomaaliyeed wada jirkeeda waxaan anfaco inaan isku duubnaano inaan meel walba ninka tuuga ee shaydaanka iska qabano war gumaysi dahsoona ku jirnaa dawladda shisheeye u wada shaqeeyaan waa niman daba dhilifyaal danigan hadlaya daba dhilif Axmed Madooba daba dhilif kulli maaraaday u wada shaqeeyaan waxa dagaalka hoos la iska dagaalo wala Ismaaciil Umar Geela iyo ninka dadka baabi'ahaye Muuse Biixi kulli tubba meel iskula jirto arrimaha dibadda way ka siman yihiin oo maalin walba maarada looga wada waca marka annaka shacabka Soomaaliyeed waa ina kacdoon sameeynaa waa inaan iska saarnaa gumaysiga waa ninka rabna ina keesano meesha soo fadhiisano marka waa idin salaamaya Soomaaliya na wada jirkeeda ummadda Soomaaliyeed keeni karto war qabyaalada ummadda Soomaaliyeed nin filis Soomaaliya joogana nama matalo ko garooba joogana nama matalo ummad Soomaaliyeedana dadka rabnaana doorahayna war gumaysiga ma iska saarnaa oo shasheeyaha ma iska celinaa oo kuba u shaqeeya daba dhelifaaga dabada ma ka gelinaa haddaana ummadda Soomaaliyeed marka waa idin salaama assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh